الدنيا دار من لا دار له بالنبي عليه الصلاة والسلام الدنيا waxay daar u tahay ninkan aakhira daar ku lahayn ومال من لا مال له dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkan dhaqaalo aakhira ku lahayn laha yajma'u man la aqla lahu adduunyada waxa ururiyay buu nabigu inaan aqli lahayn aqilku waa kee waa ninka garta wixii adduunyada kii keenay waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo manakiyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuul allah masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay nin acraabi oo reer miya markaasuu su-aasha nabiga u jeediyey yaa rasuul allah dadka ninkeebaa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikra wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum alakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi sharaftii adduunyada iyo karaamadda aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay